isaga oo 2 sano jir ah ayay dabeel martay kadibna waxa uu naafo ka noqday labada lugood. dabeel ay martay 2 sano jir aniga ku jiro baalashlaha ay xaseeyay maadaama wax fiican kama helo wax yar ayaan ka helaa. Ayaan la mahad xaashi waa 10 sano jir agoon ah. Shilimaadka uu ka helo baalashnimada ayuu ku biilaa reerkiisa. inkastoo uu joogo xilligiisa waxbarashada haddana duruufta haysata qoyskiisa ayaa u diiday in uu la mid noqdo carruurta asaagiisa ee waxbarashada aada. 2 iyo 1 maalin wax iska helaa kadibna reerka u dhiibo waayo imisa ku laltay 3 hal gabadh iyo 2 wiil ana afarta iskuul maya ayakan iskuul ma dhigtaan sabab iskuul dhigi waay ya iskuul hooyaa lacag waasi saasa loo 8 sano ka hor ayuu aabiis mahad xaashi u gurooday xabad qori dhashiika ah. xilligaas uu iibinayay dhar iyo kabo ugu xamaali jiray ayaan la 3 kale oo la dhalatay. sida uu sheegay waa qofka kaliya ee reerka u dhaqdhaqaaqa si jajabka yar oo uu ka helo casaynimada loogu bixiyo guri kira ah oo ku yaala deegaanka Weedow ee dowladka Muqdisho, halkaas uu kula nool yahay hooyadiis iyo carruurta la dhalatay. abad 3 kuna gaar loo raaca meesha masaajidka budbud fi xaafadda isku jira ya meesha ku taala budbud. hooyadiis Leela Xasan ma shaqeyso mana jecleen in wiilkeeda oo naafo ah xilliga waxbarashadana joogo ay ku aaminto khatarta magaaladan. ha yeeshee duruufta haysata qoyska ayaa ugu dhigtay wax caadi ah oo aan walwal ku hayn. 9 subaxnimo ayuu ka soo toosaa guriga si uu reerka ugu soo shaqeeyo. 5:15 galabnimona guriga ayuu u hoydaa isagoo maanka ku haya in reerka ay wax ka sugayaan. gaadiidka dadweynaha ee BLka ayuu u raacaa xaafadiisa inkastoo halka gaariga uu ku dejiyo iyo xaafadiisa ay masaafo isugu jiraan una lugeeyo. marka qaar inuu la kulmo caqabada u yimaada carruurta kale ee isku shaqada yihiin ayaan weydiiyay waxana uu si kalsooni ugu sheegay in alla uusan dhibaato tusin maadaama hooyadiisa u duceysay. cid kasta oo wax awooda ayuu ka codsaday ayaan la mahad xaashi inay caawiyaan oo ay ka saacidaan helidda gaari yar oo ah kuwa ay ku socdaan dadka naafada ah maadaama ay dhibtay ku socoshada birahan. inay walaalay muslimiinta inay saacidaan jeclaala maxaa dar hadda oo baanta inuu qabto mooto ayaa jeclahay mooto inaa liigada ayaa jeclahay mooto ku socotay biraha ku dhibaya ku tiris ku dhibaya ay adreem xanuuna. Haajir Abduqaadir, RTN TV, Muqdisho.